Gaadiidka ugu caansan magaalada Muqdisho waxa uu shaqeeyaa sida tagaasida oo kale. Magaalada Muqdisho waxa uu ka shaqo bilaabay wixii ka dambeeyay 2010kii. Waqtigan la joogo waxa lagu qiyaasaa ku dhawaad 35,000 oo bajaaj inay ka shaqeyso magaalada Muqdisho. Haddaba waxaan halkan ku soo bandhigaynaa cilmi baaris uu sameeyay Dr. Shaafici Shariif Maxamed, madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed. Sahankan waxaa la sameeyay intii u dhaxaysay laga soo bilaabo 25 bishii September ilaa 5 bisha November ee sanadkan 2020. Jawaab bixiyaasha bartilmaameedka waxay ahaayeen 400 oo darawal oo bajaaj oo si nasiib loo xushay. Natiijada cilmi baarista sida laga soo xigtay sahanka 60% darawalada bajaajleyda waxay da'du u dhaxaysaa 20 ilaa 25. Waxaa ku xiga 4 meelood meel 25% oo da'du u dhaxayso 26 ilaa 30 sano, halka kuwa da'du u dhaxayso 31 ilaa 35, 36 ilaa 40 ay yihiin 6% ilaa 5%. Sida ay isugu xigaan darawalada bajaajka ku dhawaad 100% waa rag sida laga soo xigtay sahankan. Lahaanshiyaha bajaajka marka loo eego sahanka waxa uu soo bandhigay ilaa 400 oo darawal oo la darsay ayaa la weydiiyay inay iyagu yihiin milkiilayaasha bajaajka ama ay kale yihiin. 65% ka mid ah ayaa xaqiijiyay inay iyagu yihiin milkiilayaasha, halka qiyaas ahaan 3 meelood meel 35% darawaladu ay sheegeen inay kala tahay. Saacadaha shaqada sida caadiga ah saacadaha shaqada ee la jaangoyo waa 8 saacadood. Si kastaba ha noqotee, ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee magacooda loo soo gaabiyo SRA waxa uu ogaaday in inta badan wadayaasha bajaajleyda ay shaqeeyaan in ka badan 10 saacadood maalinkii. 74% waxa ay sheegeen inay shaqeeyaan 10 ilaa 12 saacadood maalinkii. 14% waxa ay sheegeen inay shaqeeyaan 13 ilaa 15 saacadood maalinkii. Kaliya in ka yar 12% ayaa sheegay inay shaqeeyaan 8 saacadood. Intii lagu guda jiray xog ururinta, darawalada waxaa la weydiiyay bal in ay isticmaalaan ama ay balwadoodu tahay midkood qaad, taxabuu ama sigaar. Daraasadu waxay ogaatay in darawalada ugu badan 73% aysan lahayn wax balwada, halka qiyaastii 3 meelood meel 27% ay sheegeen inay la qabatimeen ama ay isticmaalaan midkood qaad, taxabuu ama sigaar. Heerka waxbarashada wadayaasha bajaajka heerkoodu waxbarashadu waa uu kala duwan yahay. Sida ku cad natiijooyinka daraasada, 33 ka mid ah darawalada ayaa leh waxbarashada aasaasiga ah ee dugsiga hoose, halka kuwa waxbarashada dugsiga sare gaaray ay yihiin 32%. Waxaa jira arday ka qalin jebiyay jaamacadda. 22% ka mid ah darawalada ayaa sheegay inay haystaan shahaado koobaad ee jaamacadda. Waxaa kale oo jira wadayaal dhalinyaro ah. Qiyaastii 13 ka mid ah waxa ay sheegeen inaysan soo marin waxbarashada nidaamiga ah. Xaaladda guur ayay sidoo kale daraasadu isdul taagtay. Darawalada ayaa la weydiiyay xaaladooda guur. 60% ka mid ah ayaa ku jawaabay inay xaas leeyihiin, halka 32 ka mid ah ay sheegeen inay doob yihiin. Kaliya 8% ayaa sheegay inay soo mareen guur, balse haatan aysan lahayn wax reer ah. Daraasada ayaa sidoo kale baartay in wadayaasha bajaajku ay caruur leeyihiin iyo in kale. 15% ka mid ah kuwa ku jawaabay guurka ayaa waxa ay sheegeen inay caruur leeyihiin. Inta guursatay 36% ka mid ah waxa ay sheegeen inay leeyihiin 1 ilaa 3 caruur. 12 ka mid ah waxa ay sheegeen inay haystaan in ka badan 3 caruur, halka 5% ka mid ah ay doorteen inaysan ka jawaabin su'aashan. Dakhliga soo gala bajaajleyda guud ahaan 60% darawalada ayaa sheegay in celceliska dakhliga maalin kasta soo gala uu yahay 15 ilaa $20, halka 27% ay sheegeen in celcelis ahaan dakhligoodu uu yahay 20 ilaa $25, halka darawalo tiro yar 13% ay sheegeen inay helaan 26 ilaa $30. Darawalada ayaa sheegay in 3 sano ka hor celceliska dakhliga maalintii uu ahaa 30 ilaa $40 maalinkiiba. Cilmi baaristu waxa ay baartay bal in maalin fasaxa ay leeyihiin wadayaasha bajaajka. Jimcaha waa maalin fasaxa Soomaaliya. Darawalada badankood 63% ka mid ah waxa ay muujiyeen inaysan shaqeyn Jimcaha. Waxaa jira 3 meelood meel 32% waxa ay sheegeen inay shaqeeyaan 7 maalin oo isbuucii ah. Daraasadu waxa ay ogaatay in darawalada badankood ee shaqeeya 7 maalmood isbuucii ay yihiin kuwa kireysta bajaajka. Xiriirka shukaansiga inta badan darawalada 68% ka mid ah ayaa sheegay inay xiriir shukaansi uu dhaxmaro dumarka soo raaca bajaajka. In rakaabka si fudud ula xiriirto waxa fududeeyay lacagta lagu qaato taleefanka elektarooniga sida ay sheegeen darawalada
keliya 32 boqolkiiba ayaa tilmaamay inaysan xiriir shukaansi aysan la lahayn rakaabkooda maxaa yeelay waxay aad ugu mashquulsan yihiin shaqadooda mana xiiseeyaan shukaansiga sababtoo ah waxa ay leeyihiin xaasas ku qanacsanaanta shaqada qiyaastii 74 boqolkiiba waxa ay muujiyeen inay ku qanacsan yihiin shaqadooda darawalka bajaajka keliya 26 ka mid ah boqolkiiba ayaa sheegay inaysan ku qanacsaneyn hase yeeshee ku qanacsanaanta darawallada shaqooyinkooda kama turjumayso rajada mustaqbalkooda qaar waxa ay dhaheen ma haysano shaqo kale sidaa awgeed waa inaan ku qanacno waxaan haysano nolosha waalidiinta wadayaasha bajaajleyda waxaa la weydiiyey haddii waalidkood labaduba ay nool yihiin ama ay dhinteen mise midkood uu nool yahay 54 boqolkiiba waxa ay sheegeen in labadooda waalid ay nool yihiin halka 3 meelood meel 33 boqolkiiba ay sheegeen in midkood uu nool yahay kaliya 13 boqolkiiba ayaa muujiyey in labadooda waalid ay dhinteen maalgelinta bajaajka inkastoo ay jiraan bangiyo badan oo ku xayeysiiya ganacsigooda maalgelinta sahankan ayaa lagu ogaaday kaliya 19 boqolkiiba bajaajka in lagu iibiyey amaahda laga helay bangiyada darwallada ayaa rumaysan in amaahda lacagta bangigu ay adag tahay oo aysan sahlanayn in la buuxiyo shuruudihiisa boqolkiiba 81 ka mid ah ayaa sheegay in bajaajku yahay maalgashi shakhsiyeed ama lacag laga amaahday qoys ama asxaab halkii bangiga laga amaahan lahaa cilmi baaristu sidoo kale waxa ay eegtay cuntada saacadaha shaqada guud ahaan boqolkiiba 67 darwalladu waxa ay muujiyeen inay cuntada maqaaxiyaha ka cunaan qaarkood waxa ay yiraahdeen inaad cuntada dib ugu noqoto guriga waa waqti lumis qaar kalena waxa ay yiraahdeen waxaad dareemaysaa hurdo haddii aad guriga ku laabatid maalinkaas baaritaanka ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 33 ka mid ah ay sheegeen inay guryahooda wax ka cunaan maxaa yeelay waxa ay leeyihiin xaasas cilmi baaristan waxaa sameeyay Dr. Shaafici Shariif Maxamed madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed